siday maanta Soomaaliya u egtaa uma ekaanayso. Puntland cidda ku soo duushay way ka hortagi doontaa ammaanka ka jira deegaanada maamulka Puntland ayaa markaasi waxa la doonayaa in la carqaladeeyo. Saciid Cabdullaahi Deni ayaa hadalladaasi ka dhawaajiyay madal oo markaasi uu xalay ku sugnaa oo hadal ka jeediyay oo markaasi isagoo ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda gobolka Nugaal ee xarunta maamulka Puntland. Waxaan kula wadaagi doonaa khudbadiisa oo dhameystiran iyo arrimo kala duwan oo ka hadlay waxa uu ka hadlay khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa uu ka hadlay ciidamada BSF ee markaasi ka goostay garabka maamulka Puntland iyagoo gaaray magaalada Gaalkacyo gobolka waa markaasi Mudug wararkii ugu dambeeyay xiisadda ka taagan maamulka Puntland iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale waxa uu ka hadlay kulamada ay garwadeen ka tahay beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka ee la doonayay in toddobaadyada soo socda ay ka dhacaan magaalada caasimadda ee Muqdisho kaasoo cadaadis lagu saarayo madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland waa Saciid Cabdullaahi Deni iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. sidoo kale waxaan eegi doonaa wararka markaasi ama khilaafkan waxa sababay iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Deni wuxuu ka yiri soo dhawaada saaxiibayaal waa maalinimo Jimcaha taariikhdu ku aasaysan tahay 31 bisha 7 Juulaay sanada 2026 halka daawanayso waa Herka TV soo dhawo hadii aad ku cusub tahay halkan nagala qayb qaado faafinta muuqaalka aad baad u mahadsantahay. haddii aynu ku horeyno madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ka hadlay khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya. Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu markaasi uu tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay carqaladeyn ay ku hayso ammaanka magaalooyinka Puntland. waxa uu sheegay in ciidamo fara badan la geeyay deegaano ka tirsan maamulka Puntland Soomaaliya. waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidamo xoog leh ay geysay magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug halkaas ay ku sugan yihiin ciidamadii ka goostay garabka maamulka Puntland ee BSF ee markaasi sida weyn kaga dagaalamay buraha caalamiska ee gobolka Bari gaar ahaan Mareykanka uu taageerada siiriyay. dagaal kooban oo bishii la soo dhaafay markaa bishan dhexdeeda ka dhacay aaga laag ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bari u dhow ayuu markaasi waxa uu sheegay in markaasi ka dambeysay dowladda federaalka Soomaaliya. waxa uu eedeyn u jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya isagoo ku eedeeyay inay colaad ay ka ururinayso deegaanada maamulka Puntland. waxa uu sheegay in ammaanka ka jira deegaano ka tirsan maamulka Puntland ay markaasi carqalad ay ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya. waxa uu sheegay inay hurayso duleedka aanraada waa markaasi ammaanka ka jira duleedka magaalooyinka Garowe sidoo kale deegaano ka tirsan maamulka Puntland Soomaaliya. dhinaca kale waxa uu ka hadlay eedeyn uga timid maamulka Galmudug oo hogaamiyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. maamulkaasi maalinimadii shalay waxa ka dhacday doorasho qof iyo cod waxa uu tilmaamay in maamulka Galmudug ay sabab u noqotay in markaasi ay khilaaf xooggan uu kala soo dhaxgalo dowladda federaalka Soomaaliya. waxa uu tilmaamay in maamulada dariska markaasi loo adeegsanayo dowlad goboleedka Puntland ama dowladda Puntland. waxa uu sheegay in cid kasta oo markaasi ka hor imaanaysa amniga maamulka Puntland ay gacan adag ku qaban doonaan. waxa uu ka hadlay khilaafka ka jira dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan dhanka doorashooyinka. waxa uu yiri xamar waxa ka jiro sidoo kale Puntland kama shaqeyn doonaan. waxa uu sheegay in markaasi muddaxileedkii rasmiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya uu ku ekaa waa markaasi 2024 ama 25 dhamaadkeeda. waxa uu sheegay muddaxileedka xilligan ama markaasi sharci la'aan inay ku shaqeynayso dowladda federaalka Soomaaliya. hadalka Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ku soo aadaya iyadoo berito magaalada caasimadda ee Muqdisho oo markaasi ku beegan 1 bisha 8 ee Agoosto la filayo in markaasi ay yeeshaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulankoodii ugu horeeyay ee markaasi tan iyo markii uu dhamaaday muddaxileedkii rasmiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya. kulankaasi waxa hogaami doona Sacdiyo Yaasiin Xaaji Samatar maadaama Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe loo doortay hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaana berito kulankaasi yeelanayo waxay kaga hadli doonaan ajendooyin kala duwan. waxa la doonaa waa markaasi ama la dooran doonaa guddi cusub maadaama uu meesha ka baxay Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe. waxaana markaasi u sharaxan ama la filayaaba sida caadada ah inuu markaasi kursigaasi ku soo baxo Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac wasiirka dekedda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
lama ogo berito inay xaadiri doonaan xildhibaanada maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa iyadoo u muuqata inay ka maqan tahay kala fadhigaasi si markaasi laga dareemaya hadallada uu Saciid Cabdullaahi Deni u jeedinayo waxaana markaasi ay tani ugu soo aadaysaa iyadoo kulankaasi uu bari furmayo markaasina waxaana la rajaynayn in xildhibaanada ka soo jeeda maamulka Puntland uu hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Deni inay berito xaadiri doonaan dhanka maamulka Jubbaland iyadoo waxa ka soconaya kulamo kala duwan oo markaasi Mareykanku garwadeen ka yahay saraakiil ka socota beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka ayaa ku sugan magaalada Kismaayo ee caasimada maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayay la kulmi doonaan maalmaha soo aadan waxay kala hadli doonaan khilaafka kala dhaxeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya lama oga in xildhibaanada Jubbaland ay iyaguna xaadiri doonaan waa markaasi gudoonka golaha shacabka oo bari la dooranayo oo markaasi ay hogaaminayso Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo iyadoo kusimaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya maadaama shaqada Nuur Aadan Madoobe oo meesha ka baxay loona doortay hogaamiyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Deni hadaladiisa waxa laga dheehanayaa in xildhibaanadiisu ay ma tagi doonaan magaalada caasimadda ee Muqdisho ayna kulankaasi qayb ka noqon doonaan Jubbaland iyo Puntland waxay ku doonayaan in markaas uu dhamaaday muddaxileedkii rasmiga ah ee xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhawaan waxay sheegeen inay qabanqaabinayaan doorasho markaas ay ku soo dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuma tiri doona maadaama waqtigoodii uu dhamaaday kuwii hore ee markaas ku matalayay Saciid Cabdullaahi Deni dhinaca kalena wuxuu ka hadlay ciidamada dowladda maamulka Puntland ku sugan magaalooyinka Gaalkacyo iyo wadada xiriirisa magaalada Garowe ee caasimada gobolka Nugaal waxa wararka qaar tilmaamayaan in Saciid Cabdullaahi Deni uu ciidamada uga dan lahaa in markaasi aan doorasho iyo wax qabanqaaba laga qaban magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug iyadoo dhanka Galmudug waxa laga qabtay doorasho qof iyo cod oo markaasi la filayo inuu ku soo baxo maamulka Galmudug Liibaan Axmed Xasan waa musharaxa GSB ee markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidamadan oo taageersan Saciid Cabdullaahi Deni ayaa iyagu markaasi waxay ku sugan yihiin magaalooyinka ama wadada xiriirisa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyo sidoo kale magaalooyin kale oo markaasi oo ka tirsan Puntland waxa uu sheegay Saciid Cabdullaahi Deni haatan wixii ka dambeeya ayna Puntland ay cid ay kala xisaabtami jirto ama cid ayna kala xisaabtamin amaanka magaalooyinkaasi waxa uu sheegay in Puntland ay iska filan tahay cid kasta oo duulaan ku soo ahna ay si weyn uga hortagi doonto hadallada Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ku soo aadaya iyadoo caalamka iyo Mareykanku ay markaasi cadays saarayaan madaxda Soomaalida gaar ahaan madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland waxay ka dalbanayaan inay mar kale tagaan magaalada caasimadda ee Muqdisho si ay markaasi uga wada hadlaan xaalka siyaasadeed ee dalka iyo xilliga doorashooyin dalkaadiis dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya iyadu waxay doonaysaa in doorasho qof iyo cod ay ka qabato maamulka Hirshabelle Galmudug waa laga qabtay walow waa markaasi waa xisbiyada ka jira dalka ay qaadaceen doorashadii ka dhacday maamulka Galmudug maalinnimadii shalay 3 July 2020 xaalka dalku waxa kareeyay Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu markaasi eedeynaya dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale ciidamada wata General Jamcaal Jaamac Tagar ayaa iyagu waxay sheegeen inay markaasi ka shaqeyn doonaan ammaanka deegaanada ka tirsan maamulka Puntland Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Deni isagu waxa uu sheegay in markaasi Puntland cidna ayna duulaan ku hayn waxa uu sheegay in qolada xamar fadhiso uga jeedo madaxda dalka gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka shaqeynayo isku dhaca qabaa'ilada ka jira deegaanada maamulka Puntland waxa uu tilmaamay in Puntland ay ka shaqeyn doonto ammaanka magaalooyinkaasi waxa uu tilmaamay in xilligan wixii ka dambeeya dowladda maamulka Puntland ayna cidnama ayna ka sugan ammaanka magaalooyinkaasi oo iyagu ay gacanta ku hayaan haddaba waxyaabaha ka soo kordha halkan ay ka daawo doontaan